wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in wasaaraddu ay wado qorshe lagu dardargelinayo tayeynta shaqaalaha Soomaaliyeed iyo nidaam lagu dhowrayo xuquuqda shaqaalaha iyo xuquuqda laga rabo shaqaale weynaha Soomaaliyeed. wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Axmed Qaasim ayaa ka warbixiyay qorshaha wasaaradda ay wado. nidaamka lagu shaqeeyo waxay tahay qofka shaqada iskale amba qofka loo dad u shaqeeyo xuquuq ay leeyihiin ay jirto. marka xuquuqahaas run ahaantii waa laga shaqeeyay sharciye oo qofka xuquuqdiisa ilaalinayso amba da'da ku xirnaato amba ha ku xirnaato weyn amba jar ha ku xirnaato hab oo waxa jiro sharciyada adduunka la shaqeeyo. taas waxa mid kale oo ka sii baxsanaa jirto adduunku sidiisaba wixii extra gaar waay laakiin waxaa la shaqeeyaa qofka bani aadamka uu shaqeeyaa 8 saacadood 2 saac subaxii shaqo la galaa 10 saac galabtiina waa laga rawaaxaa. marka nolosha ama nolol maalmeedka bani aadamka uu ku dhisan yahay qofka inuu subaxdii shaqo tago soo shaqeysto kadibna gurigiisa ku soo laabto haddana uu xaadiro mushaar ama ha u yaraato ha u badnaato qof walba sibuu ilaahay ku arsaaqay. laakiin anagu waxaan ku tala jirnaa oo amba taladeena ay tahay in xuquuqda qofka shaqaalahana la ilaaliyo qof walba Soomaalina uu shaqeeyo uusan fariisanin ama shaxaad tagin amba uusan ku raadin shaxaad wax ku raadin. wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Axmed Qaasim ayaa sheegay in shuruucda lagu dhaqayo shaqaale weynaha Soomaaliyeed mardhow ay wasaaradda horgeyn doonto golaha baarlamaanka Soomaaliya. sharciyad waxaa jirto oo hadda wasaaradda dhex taalo oo u baahan in baarlamaanka la horgeeyo marka oo shaqada welina shaqadeeda socoto qaarkoodna waa la horgeeyay xuquuqda qofka ay waxay soo galaysaa qofka saacadaha dheeriga uu shaqeynayo marka oo saacadii sharci ahaan uu lahaa marka laga baxo saacadaha dheeriga inuu helo extra lacag uu helo. marka adduunka saas waa loo shaqeeyaa qofka hadduu 8 saac shaqeynayo oo saacad dheeri uu ku darsado saacadaas lacag uu ku helaa. marka waxyaabahaas waa lagu tali jiraa sharciyadooda wayna socotaa waana rajaynayaa waxyaabaha hadda la baasmareexta inay ku dhex jiraan waxaana mar walbaba ku tali jirnaa xuquuqda qofka shaqaalaha ah dad aan shaqeyn karin ay jiro ilmaha 12 jirka 13 jirka ma shaqeyn karaan waxa loogu talagalay waxbarasho loogu talagalay dadka shaqada loogu talagalay waa qofka inuu qaangaar ka sii weyn yahay. marka waxyaabahaas oo dhan way jiraan waana ku tali jirnaa waana wadnaa qorsheeda. muddooyinkan ay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Soomaaliya waxay waday dadaalo lagu dardargelinayo howlaha ay u hayso shaqaale weynaha Soomaaliyeed. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.